Saxafiyiinta kala duwan ee ka howlgala gobolka Togdheer oo kulan warbaahineed isugu yimi ayaa waxa ay ka hadleen xadhiga ay xukuumadda Soomaaliland u geysatay wariye samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon waxaana saxafiyiintani xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay dib xorriyadiisa ugu soo celiyaan samafalaha weyn ee Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon run ahaantii waxaanu cambaaraynaynaa oo aanu ka xunnahay habkii iyo hanaankii sharciga iyo dastuurka Soomaaliland baalmarsanaa loo maray xadhigii samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon arrimuhu ka hadlay waxay ahaayeen arrimo iyagu baaris iyo dabagal iyo cadayn u baahan oo xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha khusayso inay iyaga baaraan ay ahayd laakiin qofkii sheegay ee bulshada tusay waxa weeye in isaga xadhig gaboodfal ah loogu kaco waxaan leenahay waa mid ayaan darro ah xadhiga Cabdimaalik Muuse Coldoon wuxuu barmado ku yahay marka sharciyan la eego maamulka iyo garsoorka gobolka Togdheer waa markii labaad ee Cabdimaalik Muuse Coldoon inta laga qabto burco si qafaalasho ah loogu qaado Hargeysa waxa isweydiin leh maxaa dacwadda Cabdimaalik Muuse Coldoon loogu qaadi waayo gobolka Togdheer waxa kale oo la yaab leh xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka khilaafaadka noocan oo kale ay soo baxaan wuxuu xaq u leeyahay inuu dadka la dhaliilayo iyo kuwa wax dhaliilayaba inuu isagu dhex ka noqdo laakiin waxa la yaabaa in xukuumadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweynihiiba ay iyagii maqraatiyaal noqdeen waxaan isugu nimi inaanu muujino dareenkayga ku aadan saan uga xunnahay xadhiga saxafi samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon ee xukuumadda Soomaaliland kula kacday waxaanu aaminsanahay in sifada loo maray xadhiga Cabdimaalik ay tahay sifo sharci darro ah Cabdimaalikna maanta uma xidhna arrin siyaasadeed wuxuu xidhan yahay difaaca diinteena suuban islaamka waxaanu codsanaynaa oo aanu cod dheer ku sheegaynaa in Cabdimaalik xorriyadiisa loo soo celiyo waxaan fariin halkan uga diraynaa culimada waxaan baaq ugu diraynaa Cabdimaalik maanta uma xidhna siyaasad uma xidhna arrimadana gaara wuxuu xidhan yahay diinta islaamka diinta cidii ehelka uu ahaydna maanta Hargeysa ku shiraysaa culimadii ugu waaweynaa waxaan baaq ugu diraynaa culimadaas Cabdimaalik arrinta lagu xidhay Ilaahay baa ka shifay waa tii cadaatay gabadhii waa tii carartay markii arrinteedii dibadda soo baxday iskuulkii ardadiisii maanta waa loogiya halka wax marayaan culimada waxaan leenahay kelmadda xaq ay Cabdimaalik ku dhiiraday idinku ku dhiirada oo Ilaahay dartii u hadla oo Cabdimaalik xadhigiisana sheegay inuu xaq darro yahay waxaan u taaganno ka hadlaynaa xadhiga xaq darrada iyo cadaalad darrada ah ee mar walba lagu la kacayo samafale saxafi Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon Cabdimaalik Coldoon wuxuu ka hadlay arrin xaq uu ka hadlay xaq darrana waa lagu xidhay waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay si degdeg ah uga howlgalaan arrinka xadhiga xaq darrada lagu la kacay ee samafale Coldoon oo la sii daayo kaliya xukuumadda inta ay xidhaysay waxa kala gudbooneed inay samayso baadhid ku sameysay iskuulka iyo sidoo kale xarunta uu sheegayba kadib markii baadhid lagu sameeyay hadii waxa uu sheegay been noqdaan in la yiraahdo halka ka keentay warka keen ayaa ka habooneed sida loo maray waxaan halkan ka sheegayaa in aad ugu xumaay isla markaasina ka tiiraanyeysanahay xadhiga soo noqnoqonaya ee lagu la kacayo wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon arrinta lagu xidhay oo ahayd arrin diiniya isla markaasina ka madax banaaneed arrimihii siyaasadda ee hore loo xidhiidhin jiray Cabdimaalik xadhigiisa xaqiiqooyinka jira ee Cabdimaalik Muuse Coldoon ka hadlay waa arrimo jira oo soo ifbaxay oo muddooyinkii u dambeeyay taagnaa waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo cid kasta iyo bahda garsoorkaba loo soo celiyo xorriyadiisa samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon xadhiga Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaanu anagu hadanahay warbaahinta gobolka Togdheer aan u aragnaa mid aan sharci ahayn qaabkii loo qabto maadaama uu ahaa qof muwaadina loo keeni karayay waara loo keeni karayay Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan ugu baaqaynaa dhammaan balaamaha kala duwan ee qusaysa arrintan in xorriyadiisa loo soo celiyo si degdeg ah loogu soo celiyo waxaan u aragnaa haddaan nahay warbaahinta gobolka Togdheer xadhiga lagu la kacay samafale Cabdimaalik mid sharci darro ah oo aan loo marin sifadii sharci ahayd sababtoo ah dastuurka Soomaaliland ma banayn qof gobol laga soo xidhay meel ka loo dhaadhiciyo isaguna 3 cisho wuxuu ku jiraa jeelka Madheera iyadoo wax sabab aan loo raacin xadhiga lagu la kacay Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon maaha markii horeysay xukuumadda Soomaaliland xadhig noocan oo kale u geysato wariye samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon شاكر عبد الرحمن أحمد تلفزيون كساب برعو